waxaan ka dhoofay xamar December horraanteedii 1977kii dhoofaan kan iguma horreyn mar walbana waxaan diyaar u ahaa inaan dhiig iyo dhacaanba aan u shuba dalkayga hooyo carradaydana aan ka difaaco cadawga dibadda iyo kan gudahaba balse markani waxaan u dhoofay magaalada Abidjan aniga oo sii maraya dalka Nigeria oo aan ku diga roganayay ujeedka socodkayga ma uusan ahayn in aan ka qayb galo dabaaldega maalinta qaranka ee dalkaas ee wuxuu taliyaha laanta nabad sugidda Soomaaliya oo shaki weyn ka qabay hufnaanta qaar danjirayaasha Soomaaliyeed ka mid ah ee inoo fadhiyay dalalka qaar ayaa ii xil saaray in aan si hoose ula socdo fariimaha loo dhiibo danjirayaashu halka ay geeyaan nin aan filayo in uu ahaa danjirihii Soomaaliya ee Faransiiska u fadhiyay xilligaas dalka Faransiiska ayaa xaashi loogu dhiibay madaxweyne Philips xaashida waxa la socday fariin afka ah oo xoog muhiim u ah kana muhiimsan waxa ku qoran warqadda oo uu badana salaan iyo hadal maamuuseedka madaxdu isweydaarsata u badnaa madaxweyne Philips wuxuu isku dayay in uu soo dhaxgalo Soomaaliya iyo Kenya oo markaa cabsi badan ka qabta ciidankii xoogga Soomaaliyeed oo inta badan jiray furumihii xoogagii Xabashida inta badan xureeyay dhulalkii Soomaali galbeed Jomo Kenyatta wuxuu warwar badan ka qabay awoodda ciidan iyo xirfadeed ay Soomaalidu muujisay fariinta madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo dhiibay xarunta nabad sugidda wuxuu nuxurkeedu ahaa Soomaaliya haatan diyaar uma ahan in ay guluf olaadeed ku kiciso Kenya haddii ay Kenyaanku u ogolaadaan shacabka Soomaaliyeed ee NFD inay aayahooda ka tashadaan haddii ay ka mid ahaanayaan Kenya iyo haddii ay Soomaaliya raacayaan iyo waliba haddii ay iyaga iskood u noolaanayaan waa waxa kaliya ee ay Soomaaliya kaga baaqan karto guluf olaadeed oo ay ku kiciso ama ay ku qaado Kenya maalinkii dabaaldega qaranka kadib waxaa lagu yeeray casho sharaf ay ka soo qayb galeen marti sharafkii halka joogtay danjirihii Soomaaliya wuxuu la fadhiistay safiirkii Mareykanka waxaan aniguna ku qasbanaaday in aan salka dhigo meel aan ka fogeyn dhabarkana aan u xijiyo oo aan aadiyo dhagahana waan u raariciyay nooca shaqo ee sirdoon wadan way adag tahay in si sahlan loo dareemo hase yeeshee gef yar oo ay galaan saraakiisha nabad sugidda ayaa galaafan karta noloshooda carta ayaa igu kacday jihadii ayaa iga wareertay ergagii Soomaaliyeedna sidaan u aamusin lahaa ayaa igu baahday waan istaagay sidaan suuliga rabo sharibo ii saarna iyo maryo waaweyn oo geeska Afrika laga xidho ayaan meel isaga tuuray gabar yar oo dhuuban aan filayo inay ka mid ahayd adeegayaasha qasriga ayaan u dhiibay warqad yar oo aan ku qoray NSS dushana Soomaaliya waxaana ku amray in ay warqadda qaado gacantana ay ka saarto ergeyga Soomaaliyeed si uu u dareemo in ay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ay joogaan goobta